goordhow waxaa halkan oo xarunta aqalka dawladda hoose ka bilaaban doonta munaasabadda 62 sano guradii ka soo wareegatay markii dalkeenu uu xorriyadda qaatay caawa waxaa loo midlan yahay munaasabadda 1 Luulyo ah markii gobolada koonfureed ay xorriyaddooda ka qaateen gumeystiyada Talyaaniga isla markaana ah midowga labada gobol ee waqooyi iyo koonfur waxaa halkan lagu soo bandhigi doonaa suugaan kala duwan oo ay kooxda hobolada qaranka ee waabari ugu talagaleen shacbiga Soomaaliyeed ee la xiriirta wadaniyada iyo daljacaylka ka hadlaysa madaxda ugu sareysa qaranka oo uu kamid yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la filayaa inay ka qayb galaan xafladan iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudane Xamza Cabdi Barre sidoo kale sida qorshu yahay oo la filayo waxa xafladan ka qayb gali doona labada gudoon ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wasiiro iyo marti sharaf kale ayaa sidoo kale ka qayb galaya munaasabadan caalamiga munaasabadan ee ku suntan qarannimada iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed suugaano kala duwan ayaa lagu soo bandhigi doonaa iyadoo hore abwaan Saciid Harawaba uu hore u yiri heestii goorma ladnaanayay 60kii oo ay caawa loo midnaysan yahay liibaantii oo markuu uu leeyahay abwaan Saciid Maxamed Harawaba goorma liibaanayay 1 Luulyo laba midowday oo caawa ay u taagan tahay maadaama caawa 1 Luulyo loo taagan yahay munaasabadeeda madaxda qaranka ayaana jeedin doonta khudbado la xiriira maalmahooda xorriyadda isla markaana shacbiga ay kula hadlayaan maadaama toddobaad dhan ay ahayd toddobaad dabaaldeg shacbiguna ay u dabaaldegayeen maalmaha qaran jiritaanka ummadda Soomaaliyeed ku weyn si toos ah ayaad la socon doontaan tabinta tooska ah oo ka imaan doonta aqalka dawladda hoose ee Xamar halkaas oo aynu kaga soo tabin doono munaasabadan weyn ee 1 Luulyo ah 62 sano guradii ka soo wareegatay markii dalkeenu xorriyadda uu qaatay si gaar ah waxay ku suntan tahay markii gobolada koonfureed ay xorriyaddooda ka qaateen gumeystiyada Talyaaniga isla markaana ah midowga labada gobol ee waqooyi iyo koonfur madaxda qaranka markay ka qayb gashay saacadda markay soo dul istaagto 6 saac waxa la suri doonaa calanka oo la saari doonaa taas oo muujin doonta waatu abwaan timcad yiri Israa'iil Monusqamo siduu yahay aan eegnay ka nasiib kana saar waxaana caalanka markay saacadu soo dul istaagto 6 saac la saari doonaa halkan isla markaana ay u diyaarsan yihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inay salaan sharafeed siiyaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud aqalka dawladda hoose waxa uu martigelinayaa sanadkan labada dhacdo ee ugu weyn oo ah maalmaha qarannimada iyo toddobaadka xorriyadda oo ah 26 Juun iyo 1 Luulyo oo halkan ka qabsoomi doonta waxaana gobolka mas'uuliyiintiisa iyaguna ay kamid yihiin kuwa ka qayb galaya maadaama munaasabadan iyagu ay dhigeen gogashooda ayna tahay magaalada Muqdisho caasimadii dalka madaxda gobolka ka qayb gali doonta iyaguna waxay jeedin doonaan khudbado ay shacbiga kula hadlayaan oo la xiriirta maalmahan ee ku weyn qulubta shacbiga Soomaaliyeed si toos ah ayaad ugala socon doontaa telefishinka qaranka iyo telefishinada kale ee gaarka loo leeyahay maalintan weyn ee ku suntan jiritaanka qarannimada Soomaaliyeed Ayuub Cabdiraxiin warbaahinta qaranka xarunta aqalka dawladda hoose Muqdisho